بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سري قلتو عبد الله على عانود يا صاحبك يجاش المسر عبد الله الداهية وضل كان تلياني قلت شوقنا وحبر الشوع ما عيد المضى ليدو استراتيجية الكرية قلت وحن ما تقدوين وبلارن ومرتي قليل يسقونتين هذا شرف أنه السمية جالية الصومالية دلك التلياني gaar ahaan ururka la yiraahdo Somali Toos ama Soomaaliya Toosa waa ururkaas waa urur Soomaaliyeed ee ka jira dalka Talyaaniga wuxuuna u taagan yahay ururinta dadka Soomaaliyeed ee ku bayacan dalka Talyaaniga kuwa Yurub laga soo celinayo dalka Afrika Soomaaliya ka timaado oo idil waxay yimaadaan dalka Talyaaniga faraha laga qaadaa ma gudbi karaan halkan dayacaad fara badan baa ku haysata ururkaas waa aruuriya ka Yurub laga soo celiyo midka jiran kan isbitaalka yaala ka dhinta aasidiisa ka jiran daaweyntiisa iyo taagan wax kaalmaana kama helaan urur kale ama organization kale oo Soomaaliyeed oo dalka Yurub ka jira ama North America jira ama dowladda federaalkana kama helaan runtii waxay leeyihiin meelaha ay ku kulmaan hoolal ay ku qoran yihiin sloganadii qaranka Soomaaliyeed markaad xaaladooda iyo meelaha ku soo aragtaan waxa ay markaad ayaga la kulanto waxa xasuusanaysaa halgankii xorriyadda Soomaaliyeed oo Soomaali u midaysay dhamaanteed halka qalbi ay lahayd taasoo aan dhihi karo hadda Soomaaliya joogta isku xirnaantooda iyo midnimadooda iyo wada jirkooda iyo qabyaalad la'aantooda iyo iskala fuuq la'aantooda iyo halka xubin ay yihiin dalkeena kama jirto waa xubin nool oo ka jirta dalka Talyaaniga waxaan dhihi lahaa Soomaaliya dalkeena ku nool iyo kuwa dowladaha Yurub iyo North America ku nool ha lagu daydo ururka Soomaaliya Toos oo ka jira dalka Talyaaniga wax allaale iyo waxa ay hayaan dhaqaale iyo waxay awood hayaan waxay gacan ku siiyaan ururinta dadka Soomaaliyeed waxaan aragnay in badan oo Soomaaliya isbitaalada ayuu gacanta ay ku hayaan waxaan aragnay kuwa isla hadlay ayuu gacanta ay ku hayaan waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha bulshada inay caawiso oo dadka qaar u baahan dalka in loo celiyo taas insha Allah taala khabarkaas dowladda dhexe waa gaarsiin doonaa iyo madaxda qaranka Soomaaliya Toos iyo jaaliyadda guud ahaan waa mahad celinaynaa waa shaqada ay u qabteen u istaageen oo garashada iyo wadaniyada iyo Soomaalinimada iyo qarannimada leh oo istaageen waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay meesha ka sii wada meel kasta aan joogno anagu ciidan hatta ciidamada iyadu way inoo hambaliyeen doonaan wada arki doontaan marka bulshada wanaageeda ciidanka wanaagiisa wuxuu ku xigyaa bulshada wanaageeda runtii qaybta waajibaadkiina kaga aadanaana waad qaadateen insha Allah akhbaartiina meelo badan oo kale oo dalka gudihiisa iyo madaxda dalkana waa gaarsiin doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan hambaliyeenaynaa Soomaaliya toos oo isku tiirsada hadda kiina taagta daran taageero weydiin slogan-kiinaas dadka dhabeeyay baa tihiin marka loo eego dalka aad joogtaan oo shisheeye aad joogtaan tabartiina iyo awoodiina dhaqaale marka loo fiiriyo iyo meesha aad mustawahaad maraysaan runtii wax isla maaha waa inay hambaliyeenayaa anaa hadda aan qof gaara magaciisa sheegayn ururka Soomaaliya Toos oo rag iyo haweenba hadda ay halkan fadhiyaan وأني ولا همبليين يا دميانتين خير بان إني رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.